knn. koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaanayn kalamaanay xalay waan riyooday aryaa heer waqooyi ma seexdee shimaad hurdada bilowdeen war abdilowlaanka muhundirna dabaabi haddii ou dambaabay istaakfurula waradeer annaga reer waqooyina lama yidhaahdee somalilan baana la yidhaahdaa warwarka hanaga dhex gelina waxaan ku riyooday madaxweyne farmaajo oo ka jawaabaya gabaygii faarax nuur ee shalay muuse biixe tiriyey haddii xalay madaxweyne farmaajo waa gabiye horta gabayga iga dhegaysta waxaana uu yidhi muusow inaadeer amarkii labadeenna abi axmedina soo faray haddaad oofin weydo oramada joogta hargaysa haddii uu amar siiyo ayadaa kugu aadda odaygiiyo jijigaadiyo sidii ina ilaybay kuu afduubahayaan esanamtiina ma hayside arrintaa ha iloobin walaal yaa madaxweyne farmaajo muuse biixiyow minaadan caleeme qoyan igu soo dhowaynin waa ka shallaaya miyow ka wadaa waradeer war ma haysaane reer hargayso oo dhani waxay ku heesaan muuse biixi haddaanu jirin waanu jabi lahayn muuse biixi cabdi xildiid nimayow may dheega jiray lan welb walaagusan barad ambukoode handaraabka lagobsideen maa reer hargaysa war shacabka soolaysanaag buntlandna ma raacsana somalilandna ma raacsana waa reer bu'aalaba jubbada hoosena ma raacsana gadana ma raacsana xagguu raacsan yahay bu'aale ciidanaa la geeya miyaad idhaahdeen haddaad joogta bu'aale misna aad baxsan weydo baydhabaa la tagaa hayehee axmed waranlow gabagaas mamaday isaaqaa kuu soo dhiibay war lafta garaan mar hore ari baydhawi iyoonay muqdisho jidkan dhehay hureeye waana ma hurayna war madaxweyne waanaba jidka u dhexeeya jawhar iyo beledweyne meeqowlaha waa la furaya ma dadka ma rabaad qaade war wax ma ogidine maanta hargaysa waxaa ka degay wasiirkii maaliyadda etoobiya axmed shiddo war beenta ha sheegin shidda ciidanka asluubta u ka tirsan yahay war ma taliya shuba xilka laga qaaday war adiguba shubay warka naga dhegayso waryaa hadda waxaa loo malaynayaa axmed shiddo warkii muuse biixi shala ka soo yeedhay inuu leeyahay war waxaas yaan lagaa maqale soo dhowe madaxda ku imaanaysa waradeer somalilan waxba looma yeedhiyo war cirre iyo faysal uu ka baqayaaye muuse mar hore uu aqbali lahaa ma dugsi qur-aankay uga adkaayeen maandhow war waa marantihiin muuse biixi waa mujaahid asanam ka tirsanaa jiray war hargaysa warka ma haysaane aan idinka warramee wasiirkii wasaaradda warfaafinta somalilan iyo agaasimi guud ee wasaaraddaas baa gacanta iskula tegey ma goosanayno iyo waa goosanayna may isku dagaaleen maya farmaajo hadhowaayaan iyoonay ma hadhowaayano iska galeen halka aale war warka hanaga dhex gelinana dhegayste sida ay isu dilayeen ayay dhallinyaro kala qabatay war dhallinyaradaas maxay facebook live u soo gelin waayeen aan la socone war walmooshii dastuurka qabiyo way ma dhimaatirin horta haddii ay isfeereen oon hub leesu qaadanin waa astaan nabadeed waxaana hore loo dhahay waqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkayku u soo jiraan waqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkayku u soo jiraan haye war haan niili roobaan baa dhibka gabnay haan hata jidkaa ka jiran aad sheegaysona ma iin abdulle maday isaaqow adna haantiyaad bilaabata waqay kugu fogatee warnimiya war mahaytana shabeellaha hoose geeka geed dagaala hayti yaa maday isaaqow ma geedka kalamaanaad beriga dagaal haddana keentay war dagaal kastoo dhii kalamaan ina ogiin aniiba oga warka oo dhagansada halay iyoonay geekaba eersaliini dagaala ka dhii boryoolay dagaala ka dhii haawo abdi dagaala ka dhii waana may baan dhehee dawlad iyoonay shabaab antaas iyoonay meelika badanba wal iska riigamaya leeri kii angadaranayn eersaliiniya ka dhii boryoolay naftii aan ku reebta buuntadiinahaad wal dumiya leeri wal saliidkan mar walba laleeya waa lagu diriray ma saliid baa laga helay aryaadhaha dagaal iyo dil nooma cusbee buundooyinka xay u dumihayaan dadku heesu gudbeen horta shabaab buundooyinka ay dumiyaan ma ridday u daliishadaan iyagana horta buundooyinka ma ku cibaadaysaayeen war dad xayawaan qarax ku xiray ayaad leedihiin maxay buundo u dumiyeen war warkii hore war soo dhaafiye dekadda weyne muqdisho oo adeer ma bidhi walba la wareegtay ma canshuurtii al-shabaab baa laga dhaafay ma dekataa la xidhaahaa tiriheen cartaabdha abdulow bilaashaan dhirifo hayta majakuus mar hori dekadda likureebi wareedha waa fududaateene bira culus oo dekadda yaallay oo dawladda maraykanka uga tagtay hadda ka horna shirkado iyo dad
madaxoo waaweyn oo inay qaataan raba laga reebay ayaa la raraabaa la yidhi haddeer buundadii baardheerilka suubiyaalileya war maskaraab ahaan baa loo qaataa xildhibaankii hore furux jaamac maxamedna wuxuu yidhi boosaasaa loo raraa war birarkaas DB Wall miyaa soo dalbatay war madaxweynaha Soomaaliya markuu xilka qabtay wuxuu yidhi hanti qaran la iskama qaadan karo haddaan intaa loo wadaahe marka warkaas waa isbedelayo maalin dhaweetan waxa la dhahayay istaadiyo muqdisho dhexdiisa oo la dhisanaya waxa kaloo la yidhi xaruntii milshibi ee baadiqabad waa la kala goosgoostay guryo kaloo badan oo lagu habsadana waa jiraan halla kala booba miyaa la yidhi la xisaabtami maahe warna miyaa kala guura la ka jareelaari lan walba gurigu Soomaaliya iritiis burbursaday war waxa ceebtiina ma waa caadadiin war hantida qaranka waa la ilaalinayay duufaantii doorashada soo dhow kala guurka kaambeelka galahaye ana mayba dheega jiray waa kala guurkii war ma Soomaaliland la aqoonsaday waa sidaad u qaadeen anna waxaan maqli jiray waa kala hufkii iyo kala haadintii war waxa la yiri inay uunka dhacaan labadii ku dhamaysto isku dhaarsada jeer haddii uu mid dharbaaxyo dadka dhiiri bareera ugu jiida dhafoorka midna aayar isdhuuba korna hawsha ka dheehdo iyadoon dhuganaynin taladii ka dhaxaysay waxinaanay islaamin yaa midkii dhakanaa dhibka looga cabtaa haa taas runta way koono hoolilandiri furi kan kaan hoolilandiri ka fadheedi war anigu fadheedaada ma aqaane waxa lagu sheegay ma fahmin waa farmaajo khayr iyo fahad war wax jira lama socotiine maanta gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliima Yare iyo wafdi ay hogaaminayso ayaa boosaasa ka dagaalayay ardaniyow iska raali ahaa Xaliima Yare kuma imaan duqdaanu tifoobay qabtaahe war gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliima Yare meesha maanta ka degtay waa dhuuso mareeb war doorashadii dad binayta ka gudubnay toojiifto meelo ku qabado hayte deema ka oran doonta hargeysa ka degtay alqalad marjuuca la yiri war gudoomiyaha maxkamadda ciidamada General Shuute ariya Cornel Sultan maqli jire maadaa General ka dhigayo dalacsiiyay war kuwa kaliita janana wataya ka mudan war warka naga dhaxgelinin ee General Shuute wali waa ku sii celcelinayay maanta war weyn buu sheegay wuxuu yiri walba shabaab ay haraysan ma idinku kala riyaaray alasay walba ma shabaabaan shaarubaha uga istaaga miyuu yiri Cornelka ma kala maana dalacsiisay ciidanka asluubta wuxuu amar ku siiyay inay wax ka bedelaan habdhaqanka ka jira xabsiga dhexe maxaabiista iska fakanaysa miyuu ka xanaaqay yaa qaaraaba life-ka soo gala xabsiga dhexe la yiriye war waxa la yiri shabaabka xabsiga lagu xiray ayagoo shabaab ay ka soo baxaan war adeer miyaan dhiigga laga subin war dhaqan cilmi looma sameeyo war habsiga daa General Bashir Goobe ma hoosteeda uma aha war xilligii General Bashir Goobe maxaabiista xabsiga dhexe go'aare ay sameyn jireen warkaad sheegaysiin waa eedaysiin General Shub oo ah nin laandheera ah ayaana joogo idin maqlay war hoos laandheereeye wadadii afgooyoone hamaran dhahayti hurooy aryaadaha heer xabsiga dhexe waa heeseenaa la yiri waxayna dhaheen Bashir Goobe la'aanayba Bashir Goobe la'aanayba war ma haysiin wariiraayo kulmiya afgooy lagu dilay dawladda Mareykanka ka taxsiyeeyay laakiin dawladda Soomaaliya juuka ma dhihin war maaraya Twitter ku qoray mid walantay aryaadaha hore waxa loo yiri nin walba inta hilibkiisu ku jira hiilkiisu ku jira xaad u la yaabaysiin marka ma Mareykanka nooga dhawaado dawladdanada war dawladdu wada ma goraaso geed sarawaaba leere aryaadaha qurba joog iyo Mareykan nooma kala sokeeyaan war oodka dheer kuma dhaxan tirto odayaashina kalmaan waxba lama socotaane allaantka biri xal waa banse kooxdii Liverpool hal euro lagu diray hadda sanadkii labaad xiriira ayaan u maleynay championka qadalaadka Madrid war sheega halkan wuxuu war naga tagta jabe war adeero bacdi surwaalkaas kaga bixin leedo Reebanooni wax kama ogada surwaalkan kor u ceshayo ka dhicina war ma haysaane madaxweynihii Turkiga maanta waa hadlay wuxuuna yiri militariga Suuriya hadaan ku arko gobolka Idlib cagtaan marinaya ruushkana waxaan ugu digayaa wixii ciidanka jooga Syria hadda inuu ka qaato marka waxaan isleeyahay halka waxa ka soo socda dagaal culus xaa ku wareeriha maadiga xamaali lahaay war Erdogan shabaabkana wareeriye ma dhaho cagtaan marinaya dalalkii aasaasaa laga rabaa taas war Dr. Shaakir markii xaaladda ay ku xumaatay suudku waa iska bedelay qamiisku ku laabtay war Axmed Madoobe ba dhooblay waa ka baaqda mug dhex loo galay ciidankiisii xaad ka sheegay war diyaarad qaadu ayaa la yiri war xagee ka baxday kayidi war dana baa la geeyaa la yiri war wixii dhibaanaga idinka qabanayna ixtiraamka la siiya war BK maanta Hargeysa maxaa loogu soo dhaweyn waayay war Soomaaliya rabaa uu yiri war ma wuxuu joobaniyow war wad marantiina uu kala wada meesha qaranka Soomaaliya idima baahne yaada waxaan idin darada aad wadaan meesha ka qaadan idin leeyahay ayay koofis iska dhig war yaada muranka iska daaya wadankiina u shaqeeya
war cabdiqani burxaan ku dhacay miskiin qoortay ku dhufteen war naga taga midnimadu waa muqadis walaala goonistaga Soomaaliya waa muqadis